وقتي قبل كيران سيدا بدن أي هستين ومقالة مدحضة معنا أنت كلا أي هستين قبل كيران أقول بيري وحن كو بيري عيدا كاللي لأنه كاس حسبدا وحن أقول سيد بي عيدا اللي لأنه جبهده هذا أسقوله مدكوا وانا عادي اسكو لا أسقوله إن اسكو مرة إلا عليك أنت أسكدب أنا حامل واي ولاسك يمنطقة مشاكلات كهستمر والله دولة لما كاس أيضا الدرحوا كان يقول هذا حكوا ودي وتيرم كيهرا أو ضبيعة قدي تيرم كيهرا حسن شيء ضبيعة قدي وإسقى صوتي سيدي أنا كصاب حي رجال المقدشين ها عبد الوهاب علي راجي أفجر شدي سنة هاي صادق ودجاليان هوري حزبه إلا يجبهد كان قيب قاتل دجال الله جلي عيد ماذا قرنكها iyo weerar badankood muqdisho iyo hiiraan ka kala dhacay waxa loo arkayay qabiir la qabsan kara mowjadaha magaalada xamar oo kala ah xambaarsanna khibradaha isbedbedelka isagoona xariif ku ahaa tirtiridda raadadka muqdisho waa ay macno badan tahay waxa uu amirtay ka shaqeynta mootabajaajta sida lagu soo eedeeyay ay ku hoos jirto shaqadiisa shabaabnimo sida qaadista xubnaha jidiye jahadiidka iyo kala gudbidda qaraxyada agabyo kale iyo saaminta jidadka caasimadda oo dagaal bataqaana wuxuu ka soo shaqeeyay gobolka mudug halkaas uu ku dhaawacmay maxkamaddu way baari kartaa dhaawac ka soo gaaray gacmihiisa mid kamida kilida uu dhaawac ka soo gaaray dhinac waa hadii maxkamaddu baato uga karta uu inkiray oo qarinaya dagaal uu la galay ciidamada AMISOM gaar ahaan ciidanka Itoobiya admis kamida dagaal ay la galeen ayuu ku dhaawacmay عبد الوهاب ريركيسة أنت كوانيين أو كوعي جلين شباب إني وح في عنهين والعقل لو قارامية لقى سارة دلك وحول تجي كينيا كذب وصول لابطي وحكوا صول لابطي مقالة البلد وين وكل شيء أو أي كتاليان عيدا كدولة مركي شباب لقى ساري لقى صوب بالله والله بكون تضبيط طبنكي إلى أي هذا السوق بشيدس وحكوا شقيناي إنه تجو شباب مالها قرحية كود دياريان وكسر قاعدة شو مجالة كل جوجو إنه بيها موتبجات شو كسر قاعدة وحكوا كينا مجالة وذا نقول من حرفين كيس قرصان قطرتها وذاك كل بعتين وحكم مركي هو الرئيس موت كراه أسوي له أو أسوي له إنه كراه استعمال جري ومرنا سيم وحكوا شغال جري بجال مرنا وحكوا كسر قاعدة جري قرح شباب وحكوا ده موتنا إسكنا في النجا كوي يبين موت سو إبس العجا الله صادر الله بكوني حاجة موت ده مركو جذني gabar lagu magacaabo Nasro Aadan Umar oo xaaskiisa ahayd ayuu ku qoray magaceeda mootada si uu isaga leexiyo hadii biri la isku qabsado inuu isaga ku qoray aan loo ogaan xoogga dalka gaar ahaan ciidanka police military ayaa howlgal lagu hagayo xogo sirdoon ku soo gacan geliyay Cabdiwahaab Cali Raage Saadaq xidigle Cabdirasaaq Cabdulle Geedow taliyuhurin ah iyo Macow Cilmi Cabdi kana wada disan guutada 20aad ee gungaar xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maxkamadda kaga sheekiyay sida maalintaas loo qabtay eedeysanaha waxa la sheegay laba jagbooti magaca shulay jagbotiga ciidanka soo ku soo tagay oo shaqadiisa ka soo dhameystay gudaha soo xirooday jagbotiga soo ku sugan la sheegay soo doonay markaas taliyaan la wadaagay taliyo ciidan uu si waa soo doonay waa soo qabtay xodiisana waxa lagu siiyay inuu mooto iyo مستولد أولى مركان قبتي حاجة هزدين ويري والله وزاز صباحا هني معتدى يعود عن هني معتمي ليه مجهر ده هاي مركي دبنا وغيره وحيري ماشي سي تعالى خالي شدالي تعالى وده هو ودني خالي انت شدال كان جيني عندها بسان كحر من مكاس عندها بسو كحر راي خالي انت شدال كان جيني خالي انت شدال كان جيني وحان أنا عيدن كيا واحد موتة بار أحاول أكجر نجا بار أنتي بارين وحسك دينه فكذا وعرري أنا جو حنبك لما هاي نوع الرعدي مركز عيدن كي قود دبارني وساقط جيت تجاه ولا الأحمر نلا هم حاول أحكي جالسي أنتوا عرري وساقطني موتين واسك بارين وكساقطني تليان كوري جمكاس askari wuxuu sheegay in ninkaas Cabdi Wahaab oo shabaab xogtiisa la soo wadaagay oo jooga ceelasha ku shaqeeya mooto bajaaj ku shaqeeya adii muddo 10 maalin camal mootada taargadeeda ku raadinay jabootiya
habeenkii dambe xilli adiga 3 saac habeenimo camal iyo 4 saac intuu dhaxaysa meelahaas askarigii la soo wacay oo loo sheegay meesha uu joogo Cabdiwahaab askarigii ay soo wacay ninkii xogtiisa aan ku daba jirnaa meesha uu yiri meeshaas uu joogaa askar wada ortay soo qabanay askarigii waa baxay askar watay adiga soo ii sheegay markii soo gacanta uu ku soo dhigay in uu ka farbaxsaday oo weli ord lagu soo qabto ii sheegay waa ay keenay markuu ii keenay Cabdiwahaab waa wareystay waa igu inkiray inuu shabaab yahay askarigii aan u yeeray caddayn maxaa ku haysaa ninkaan xogta kula soo wadaagay inta kula soo wadaagtay caddayn ha keentaan askarigii wuxuu wacay عندي حقت لسه ذاكتي عندي حقت لسه ذاكتي وحياة سي وعها أنت كم غيرها وفك حقت لسه ذاك أذكر وحالا مركز لسه سنين كان رمضان وقالش رمضان وا نك مركز سوى عيري محاكم أبسط نكاس من شعب وواي وبجاج كل شيء قيسته سواب أو أبسط نكاس نك عن شعبنا مع الوهايا يعني رمضان كيس وأدين كاسر هي أحد كهرب بالدنيا كسودي شو دمير كسودي أسوأ شو عم نملو حري نوضون كي مركو دمير كسودي كده نشوفه كلابتي أو عدين تاسع كوهنا تاسع عدين أنا كانوا هاي أنا شوفه أسيجي مركا إنتاس مركا يسوقرتي أسيجي أبو صلابتي وحنا هاد كهرب يعني بالدنيا الوحري حكت على واحنا نوضون كاسع صدر منتي إن عشرة كده وقرتي markuu qirtaan sii wareystay wuxuu yiri waxaan ka shaqeeyaa aniga in aan isbeer baartiyada aan u gado shabaab aan u dhiibo oo bajaajtaana aan ugu shaqeeyaa waxaa kaloo yiri lacagaha EFC ay soo diraan waxaan u bedelaa iidahab oo iidahab aan u diraa waxaa kaloo ii sheegay malmalaatada oo caruurta lagu nafaqeeyo in uu u gado oo jabhadaha dul ku jira ay isticmaalaan oo u dhiibo shabaab iyo xaasaskooda in bajaajta ugu qaado boostooyinka intaas ugu kala wareejiyo arrintii marka taliyay guutada la wadaagay oo markaas taliyaha ururka telefoon heega lagu waayay taliyaha guutada la wadaagay isgoyska ceelashaan joogay gacantaada ku jiro hay subaxina xabsiga xerada oo arbacoogeey subax xabsiga xerada arbacoogeey habeenka ka dambeeyay taliyaha guutada soo wacay xeradihii weyn oo asiga iyo isla joogaan aan noo sugidaan meeshaas igala wareegtay intaasaan ka ogaanay baraha qarsoon ee kiiskan ayaa maxkamadda u sharaxay xogaha la xiriira galkan ku-xigeenka xeeralyaha guud ee ciidamada qalabka sida gaashaanle muumin xuseen cabdullaahi ayaa maxkamadda ka dalbaday in eedeysanaha lagu ciqaabo qodobadii sharciga ay ku soo eedeeyeen 29 markii 3 loo qaybay 2 qayb ku dhawaad macnaheedu markuu qaan gaaraba mas'uuliyadda asaga ay kortay ilaa iyo hadda la soo qabanayay wuxuu dhib ku ahay nolosha iyo deganaanshaha ummadda Soomaaliyeed mudana gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh sidaan horeyba u sheegay Cabdiwahaab wuxuu maleeshiyada al-shabaab ku biiray sanadku markuu ahaa 2011 wuxuu ka soo shaqeeyay sidoo garsoorka la wadaagay gobolada Mudug iyo Hiiraan iyo gobolkan Banaadir wuxuu ka soo kala shaqeeyay kooxda ka shaqeyso dilalka gaadmada ah ma taqaana ikhtiyaalka ay u yaqaanaan oo hadda ugu dambeysay lagu soo qabtay wuxuu ka soo shaqeeyay kooxda kale ay dhahaan jabhad ama shuftada maxaa la yiraahdaa ciidamada gobolada u kala gudbay jidadka u gala iyo shacabka intaba sidoo kale wuxuu ka soo shaqeeyay kooxda ay dhahaan ma taqaana xisbada oo ayagana dadka masaakiinta ganacsanaya xoolaha baadda uga qaada ee dadka yani ma taqaana dhibaateeya mudana gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh hadda xirfadda ugu dambeysay lagu soo qabtay kooxda ma taqaana dilalka gaadmada geysta uu kamid ahay wuxuu u qaabishanaa 3 xirfadood inuu koonooyinka magaalada sida beerta Calimahdi duleedka ceelasha biyaha inuu ka soo qaado qaraxyada isagoo isticmaalaya mooto bajaaj oo muwaadiniinta mooto bajaajta ku shaqeysta isku dhax qarinaya ayuu halkaas qaraxyada ka soo qaado oo soo gali jiray magaalada Muqdisho mudana gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh sidoo kale wuxuu ka shaqeyn jiray oo qaadi jiray dadka dilalka gaadmada geysta sida qarsoon dadka u dila u gaada
inuu soo qaado markay dilka amba qorshaha fuliyaan oo qaado halkii ay doonayaan ku celiyo sidoo kale mudana gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh waxa kale oo shaqadiisu ahayd intuu bajaajleyda shacabka ummadda ku shaqeysta oo isku dhex qarinayo yani wuxuu sameey jiray basaasid yani rugaha ciidanka dawladda ay fadhiyaan haddii halkay ka guuraan aaga ciidanka ay maanta yara xoogaa jilicsan yihiin inuu soo sheego si halkaa loo mariyo alaabtay rabaan u marsiistaan mudana gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh cabdiwahaab ehelkiisu markay ka wacyi geliyeen oo ay ka waaniyeen oo ay dhaheen kooxdan shabaab iskaga bax ee dawladda isu dhiib ee sheeg inaa shabaab ka tagtay waa uu diiday wuxuu yiri kaam video waa laga duuba wajigayga baraha bulshada la soo dhigaa siyaas daraadeed ma shaqaysa karaay micnuhu shaqada uusan shaqaysa karaynin ma aha inuu oo shacabka dhex shaqaystay waa inaanu qaban karin shaqadii shabaabka uu qabalahay waxa uu diidayo luqadda uu ku hadlayo waxa uu qarinayo uu diidayo oo in camera hor istaagu diidayo waxay inuu shaqadii shabaabka qaban waayo mudana gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh cabdiwahaab waxaan maxkamadda hor keenay markaatigi qabtay ee yaqiinay dhalashadiisa meesha ku dhashay iyo goorta uu shabaab ku biiray iyo wadooyinka u soo maray yaqiinay ee soo qabtaan maxkamadda hor keenay oo dhageysatay waxaan maxkamadda hor keenay baarihii yani dacwo dalka soo baaray aan maxkamadda horteeda ka sharaxay waxaan maxkamadda hor keenay qoraalkii ama qiraalkii oo ka qirtay garsoorka hortiisa oo halkaan ka akhrinay oo ku qirtay waxyaabaha aan sharaxayo idin waxaan codsanaa maxkamadda si sharafi xushmad ku jirto uga codsanaa cabdiwahaab ciqaabta ay tilmaamayaan qodobada aan ku soo eedeynay in lagu qaado oo aan looga naxariisana codsanaa maxkamadduna waa mahadsantahay qareenka eedeysanaha ayaa maxkamadda weydiistay in muwaakilkiisa loo fiiriyo si fifaalaha dembiga fududeeya mudane gudoomiye maadaama eedda xafiiska ilaalinta uu iska fogeeyey wax caddaynana aysan jirin oo caddaynaya eedaha kan la soo eedeeyey inuu dembi fale ka yahay qodobka 18 21 asalba waa qodobada gacansiinta argagixisada gudbinta qaraxyada khuseeya qodobadaas maba khuseeyaan mudane gudoomiye qiraal wuxuu yahay inuu shabaab ka tirsanaa howlgallo sameeyey meel uu hadda uga soo baxay oo cadna aysan jirinin waxaan maxkamadda sharafta ka codsanayaa ee tixgeliso eedan tirada badan oo maxkamadda xiraanta ay soo gudbisay maadaama caddayn loo haynin maxkamadda ay ka qaado haddii alla ku idmahayo aysan aqbalin sidoo kale maadaama inuu isdiiwaan geliya maangaabnimo u geysay shabaabna inuu ka mid noqdo ee uu cad yahay sifaalaha dembiga qodobka 4aad faqradiisa labaad xarafka ga inay maxkamaddu u fiiriso sifaalaha dembiga fudeeya maxkamaddu waa mahadsantahay gaashaanla sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa gabagabada maxdarkan soo xiray Cabdi Fataax Aqyaar warbaahinta qaranka Muqdisho.